da'da weyni inta badan way fakartaa waana laga yaabaa manahijta ama qaabka loo fakarayo mujtamaca inay wax ka bedasho laakiin xoogga dhabta ee bulshooyinku ay leeyihiin waa da'da yar xataa ambiyada dadka ugu badan ee u gargaaray waa shabaabka dib ugu noqotay taariikhda dib u daraasay shabaabku waa xoogga qura ee wax bedeli kara laakiin hadduu shabaabka laftiisu mufsid u yahay ama akhlaaqdiisa ay liidato isna waxba ma bedelayo shabaabku inta ugu badan la mustaqbalkay ka fakaraan duulka waa gashaan dabeetana waxaa laga fakaraa jaamacaadka marka la gelayo waxaa lagu qiimeeyaa un marketka suuqa soo kuma egtaan kimistarinimo u doonaya miyuu jira ama physicsnimo u baro ama engineernimo u baro xog falimi waayo aakhirana ilaahay looguma dhawaado dunidana qofka waxma dheeraysiin laakiin maxaad raadinaysaa waxa ugu badan ay dadku raadiyaan waa lacag dad suuqa soo egto tidhaahdo accountingka aad u fiican accounting baad biraarkiisa dadkoo dhan oo wada baranaya si suuqa lasoo yaro maro la arko iyadoo computer science uu xoogaa ka jiro berrito waxaad arkaysaa iyadoo boomiguu yahay suuqa computerku da'da yari markaa inta badan mustaqbalkay aad uga fikirtaa waxaana la mustaqbalka ka fikiraysaan ha noqdo dadnimadiin inaad qof muslima oo toosan noqoto kaas baa waxa ugu fiican in laga fikiro in qofku u fikira hantida ugu badan qofku haysta waa dadnimadii hantidu lacagta ma lacagta waxba ma kordhiso badan waxa ugu badan ay kordhisaa waa calool bay dhergisaa mala la huwadana way keentaa intaasay keentaa waxba kale ma keento laakiin waxa rasmiga ee qofka matala shakhsiyadiisa rasmiga ah waa dhaqankiisa iyo akhlaaqdiisa waxay qofka inay warwar ku hayso marka xaafadan hadaan dago waa xaafad dhalinteedu ay akhlaaq cunto akhlaaqda kaaga xumaanay iskuulka inaad uga bedelato daraadeed in ardaydiisu ay qaar liita yihiin iskuulka inaad u tagto daraadeed inay dad fiican joogaan waayo waxaad ilaalinaysaa hantidaadii ma guuraanka ahay saaxiibkaaga inaad eegto hadduu habaarqaba sigaar cabaya ama qaad cunaya ama mushkilad kale haddaanad islahayn waad ka jari karaysaa inaad kaga tagto waayo hantidaadii ma guuraanka ahayd buu khatar ku yahay yacni sarwada aad u baahantahay inaad ilaalisaa waa sarwada ah dhaqankaaga iyo akhlaaqda iyo iimaankaaga inay kuu noqdaan hantida ugu weyn aad sileeda ilaali ee salaynaysa degaankaagu halkuu noqonayo ee aad ku salaynayso dadka aad raacayso ee aad ku salaynayso bulshada qaabkaad ula dhaqmayso waa hanti runtii aad u qaaliya laakiin qalla ay yartay dadka inta ka fikirta hantidaas siduu u ilaashan lahaa iyo siduu u dhowri lahaa iyo siduu mujtamaca kale ugu gudbin lahaa kelmadeyda waxaan kusoo koobaya marka islaamnimadu yay af inaga noqon ya ayuha aladiina aamanuu lima taquluuna ma la tafcaluun kabura maqtan cinda allahi an taquluu ma la tafcaluun ilahay baa wuxuu leeya ya ayuha aladiina aamanuu lima taquluun ma la tafcaluun war maxaa odhanaysaa waxaydan samaynay laa ilaha ila allahu markaad tidhaahdo dee wixii ay lahaydna waa lagaa rabaa laa ilaha ila allah muxamadun rasuulullah waxay lahaydna waa lagaa rabaa kelmadeyda waxay ku koobantahay marka bulshada maanta joogta waxaa laga yaaba dad badan had iyo goor isbedelka inay ka egaan madaxweynihii ma tegin madaxweyne cusub ma la keenay baarlamaanka iyaa iska bedelay kuwaas in badan waxba bedelaan bulshada waxa uu bedela xooggan soo socda sida uu fakaro iyo siduu nolosha u arkayo iyo siduu wax u qiimeynayo xooggaasi hadduu nolosha aragti ka leeyahayna wuu bedeli karaa haddaan uu dee aragtidu ka leeyahay tahay wax cunna gaalada lafteeda waxay dhahaa maxay ha u noolaanin bay dhaha inaad wax cunto ee wax u cun inaad noolaato bay noloshaadu hadday noqoto in xoolataad u heshayo xoog iyo wax la cuno marka noloshaadii cunnaa kule adig laakiin u noolow bay idhahdaan wax u cun inaad noolaato mujarad cunnadu ha kuu noqoto waxaad nolosha ku kaalmaysanayso laakiin noloshaada qiimaheediiyay noqonin waxaan kula dardaarmaya waxa weeyaan inaynu طبقنا islaamnimada aynu wada rumaysannahay la ilaha illa allah muhammadur rasuulullah aynu wada rumaysannahay inaynu si fiican u طبقno oo nolosheena ku طبقno oo garanno cid waliba xaq ay nagu leedahay iyo akhlaaqda laynooga baahan yahay al-adab ma'a allah ma'a rasuulihi salawatullahi wa salaamu alayhi iyo ma'a naasi ajma'in waxaynu kula dhaqmi lahayn inaynu garanayno markaas bay suurtagal tahay inaynu nolosheena wax ka bedelno tawrana samayn karno tawra dhab ah baynu mujtamaca ku samayn karnaa haddii dhaqankeena is isbedelo waa maanta magaalada hadday soo galaan afar yaryar oo dhafoorada xiiran sadama waxaad arkaysaa nus yaryar oo kale ku daydo dhafoorada xiirtay sacan kama ama haddii tviyada la daadaawado iminka watan la leeyahay caagii yaraaba dunida oo dhan isugu timi la eriyaya kubadii dunida ay sheegaan waa just malha waa wax biniaadamka lagu mashquuliyo waxa laaliya waxay nimanka reer galbeed waxa ugu weyn ee ay shabaabkooda iyo dadkooda ku hayaan ku mashquuliyaan waa laba shay waxa la yiraahdaa sportsku inta badan looma qasdiyo waxa laga yaabaa inaad tidhaahdo waa miyaan ahayn jirkoo la dhisay waa jirka si badan baa loo dhisi karaa laakiin kani waa malha isagu waa meel dadka lagu waalayo iyaba yidhaahdaan music shaneeme iyo music iyo inta tan labada kooxoodbana waa drug dealers drug cabaan ta ugu badan fanaan kastoo dunida ugu caansan waa ka ugu qabaysan ku kastoo kubadda maqashaa Maradona waa maqlaysan inay raayeen Japan baa loo diiday drogada cabay daraadeed Japan oo dhan baa fiisay u diiday ala kulli xaal isku dar malhaaga mid kamid oo ku dhex jira haday maanta shabaabku arkaan oo labada dhafoor ba xidhan aroorta Maxamed magaalada ku arki doonta dadkoo dhafoorada xiran waan isweydiinin war ka xirtay muxuu yahay maxaa loo xirtay aan cid isweydiinin hadaa intiina isku daydaan inaad dhaqan ka muujisaan way ninkii xumaha waday wuxuu isku dayay inuu xumihiisii xagga tare soo
saaro oo isku dayo inuu misaal ummadda u noqdo dadku ay ku dayan karaan ama dhafoor la xiray ha noqoto ama surwaal yaro lawga korkiisa laga goynay ha noqoto ama wixii la doonayaba ha noqotee wuxuu isku dayayaa inuu misaal u noqdo najm inuu noqdo ummadda ay ku dayato waay dadka fiican ay u noqon kari waayeen inay dadku waxay ku daydaan soo saaraan kelmadaydu waxay ku koobmaysaa waa risaale xambaarsantii risaaladuna waa taa nabi maxamed leeyahay calayhi salaatu wasalaam innamaa bu'ithtu liutamima makaarima alakhlaaq idinkaana u shabaab iyo dhalinyaro iyo xoog ba isku daya risaalada inay gudbisaan wallahu aclam billahi tawfiiq